وقميستي تضباد ملها سيديداد أو سيدان أو كلا برها بالشدة أي أقب سنة يسو مهد صلاة أي الله مقعابية أقاسمها هي أدى نبسوكدي سردون كقرنك أقاسمي هراء أيوها السنبلو الشحيل كاللوغة قادي حدنا إن إساقي اللوغة قادو وحدار معها وحوين معها لكن محا مسلسل كدغيا محا مر walba maha salaad soo hami gelinaya hadana loogu hungooba oo aan wali xilkii looga qaadin sanbaloolshe hadana loogu dhicila yahay arintaas iyo su'aalo badan oo la xiriiro maha salaad kama qayb gelin xisbigi dhawaan lagu dhawaaqay JB muxuu ahaa xisbiga cadaaladii horumarka ma aha xisbigi kama qayb gelin sanbaloolshana kama qayb gelin waxba isku milqan muuqaalkan adiga dabageynayaa soo dhawaada saaxiibayaal haddaad nagu cusub tahayna waa idin soo dhaweyneynaa haddaad hore noola joogtana waa mahadsan tahay si kaftan ah asxaabtaad garanayso war gurigee kugu dumay waa u dhihi kartaa xisbigii caanka ahaa ee xasan sheekh maxamuud xilka ku soo qabtay ee ahaa xisbiga damul jadiid ayaa dhawaan magacii laga bedelay dib u cusboonaysiin lagu sameeyay rag cusub lagu soo daray rag kalena dabcan wali ay dibad joog ka yihiin xisbiga waxa la olog ahaa oo dawladda la dhistay xisbi la yiraahdo daljir oo qaarkood ay hadda dibad joog ayaguna ay ka yihiin xukunka halka qaar aan badnayna ay wali la joogaan balse magaca badna waana xisbi ayagu mar walba doorashada qiimeeya heedka iyo karkarka doorashadan soo dhow ayaana wax walba oo isbedela oo ku dhaca siyaasadda sabab u ah daan idin sheegaya hadii qof xil laga qaado oo qof loo dhiibo ama qof cusub lagu soo daro micnaheedu ma aha qofkan kartiya looga maarmi waayay iyo qofkan karti xuma xilka looga qaaday no xilligan kama dhex jirto Soomaaliya ee waa wax la xiriiro dan iyo xisbi dhisid iyo xukun fidsi la xiriirta weeyaan xisbigii damul jadiid akaabirta ugu waaweyn sanbaloolshiye maha salaadba way kamid ahaayeen ogeed fadhigo ah labadooda ninna in ay lumiyaan ma doonayaan ragga hadda xisbiga cusub ku bahoobay ee xasan sheekh uu hogaaminayo labadooda ninna in ay lumiyaan ma rabaan labadooduna waxay taagan yihiin meel ama siriq la isdhihi karo labadooduba way uga boodi karaan taranka sad garanaysaan xafladii haween hore ka dhacday magaalada Muqdisho ee loogu dhawaaqay xisbiga cusub ee loogu magacaabay xisbiga cadaaladda iyo horumarka mahad salaad oo kamid ahaa xisbigii damul jadiid raggii soo aasaasay ee madaxweynta ahaa magaalada Muqdisho ayuu ku sugnaa mana tegin hoolka looga dhawaaqayay ee shirkaasi uu ka dhacay ma tegin sidoo kale agaasimaha hay'adda nabadsugadda sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Ali Sanbaloolshe isaguna xisbiga xilliga lagu dhawaaqay safar ayuu u baxay oo dalka Itoobiya ayuu ku qaatay dhowr habeen oo ay kamid ahayd habeenada shirkaasi u dhacay xasooran iska ma dhacayaan biyaha hoostooda ayaa la iska gaadaya waxa dareemaysaa xisbiga qaab dhismeedkiisa rag baa lagu magacaabay laakiin ragna qaab dhismeed oo xisbiga uga mid yahay ragna maamulka ayuu uga mid yahay iyo mataqaana kamid ahaanshaha golaha mahad salaad sababaha uu banaanka uga joogay markii xisbiga lagu dhawaaqay isagoo waliba magaalada Muqdisho joogo wax kale ma aha waa hal sabab sababtaas oo ah waxa uu taagan yahay meel uu rabo inuu tareenka ka boodo ama uu soo galo hadii uu tagi lahaa tareenka uu saarnaa lahaa xisbigu kamid ahaan lahaa deetana waxa yaraan lahaa karkariska iyo raadinta uu u qabo xilka agaasimaha hay'adda nabad sugidda oo hadda uu wax walba u sameynayo si uu soo laabto oo loogu soo celiyo xilka xasan sheekh ayuu ku gorgorinayaa in aan xisbiga kamid noqdo kulan si shaqeeyo hadii aad rabtid waa inaad xilka igu soo celisaa laga ma marmo waa lagu soo celinaa la leeyahay warqad baa loo dhiibaya magacaabistiisa ah qamiistan waa adiga la leeyahay asna asxaabtiisa u sheega deetana baraha bulshada hulco waa halka agaasimaha hay'adda nabad sugidda hadda joogo Cabdullaahi Maxamed Ali Sanbaloolshe isagana nabad sugidda ayuu joogaa waa lama lumin karo waa tiir weyn oo muhiim ah
oo xisbigana muhiim u ah inuu luma lama ogolo waxa la isku dayayaa in lagu qanciyo nabad sugidan ka qaadayna asan xil kale ku dhiibayna isaguna wuxuu yiraahdaa xil kale ma rabo haddaan xilkan ka tago waa sidaan uga tagay xil kale to hadda xilalka sheegaysiin wax ay qalma ma aha aniga ni weynana maalin walba waxay dib ugu dhacdaa marka ninkan xil cusub lagu qanciyo iyo ninkan lama lumi kara warjoog hal yiraahdo wali bahashu waxay isku qaban laadahay ragii xisbiga samaystay bay isku qaban laadahay labada ninna waa laba nin oo muhiim ah iyaguna inay taranka xagga ka maraanba ay u fududahay waxa kale jiro rag kale oo iyagu xisbiga karkarinaya ama banaanka taagan oo mucaarad ah oo xisbiyo inay sameystaan rabo oo iyaguna u gacan haatinaya ragga culculus ee saluugsan sida loo dhisay xisbigii dhawaan lagu dhawaaqay rag saluugsan ayaa iyaguna jooga oo u gacan haatinaya ragga muhiimka ah in ay xisbiga ka haraan halka la iska qaban laaya oo salaadu iska qaban laadahay waa halka ma aha hebel xil loo dhiibaya iyo hebel laga qaadaya dadka baraha bulshada ayagu dhowr sibay wax u difaacayaan rag baa qabiil u difaacaya rag baa nin nacayb u difaacaya rag baa dagaal ugu jiro ma taqaana ninkaanu adi biri waxa ku siiyo dagaal ugu jiro waxaas oo dhan adinka ku daalaysiin ma aha ragani meel kale ta la iska dagaalsan yahay buuqa hala yareeyo isniinkoyda qamiiskoyda dagaalku halkaas oo ka jira hadba dhinacii ay u boodana ka kaleeto inuu tareenka ka boodi doono maskaxda si gashta